soo dhawaada maclimadan waxay sharaxaysaa faa'iidada biyaha kulul ee jirka u leeyihiin kadib midkaana biyo kulul gacanta ku hay saaxiibkiis ku baraaweena iyadoo qaylinaysa waxay weydiinaysaa sababta oo sidaan u sameeyay wuxuu taagan yahay adiga Soomaalidan dhihin faa'iido leeyihiin aniguna waa tijaabinay intay xanaaqday waxay la socodsiinayeen inuu ciqaab la kulmi doono asna waa kana ay uu soo istaaga wuxuu weydiinaa qofkii ciqaab ayaa waayay mar kale kugu soo celina anigu waxaan ahay wiilka oo maamuluhu dhalay adiguna maclimad yar aad sida ila hadlaysa waa inaad ka fiirsataa midkan aad u jeedid oo hortayda fadhiyana hooyadii waxbarashada ku sadaqaysatay ee isaga waxba iskama bixi karo waqtigii break markii la gaaray wiilka miskiinka waa kana halka xabo rootiga oo la soo baxa laakiin hal mar aan rootigii waxa ka dafaayo cunugii maamulaha wuxuuna weydiinaa war adiga maxaa ka qaldan rootigan qalalan sidee u cunaysay waxaanoo kale mar dambe iskuulka u soo qaadan wasaq waayo dhaha dhulkuna ku tuura isla markii hooyadiis oo ahayd maamulaha iskuulka xanaaqsana meesha soo gaaraysa waxay ku dhehaysaa rootiga hadda dhulka ku tuurtay adiga cunaysid inta aad ka cunaysidna bilooyinka soo socdo dhan cunto kuma siin doono kadib cunadii uu wiilkeedu watay intee soo qabatay waxay ku wareejinayaan cunugii miskiinka ah midkii ay iyadu dhashay waa kana xafiiska u soo wadatay waxa uu sheegay inay maanta si cadaalad darro ula dhaqantay weligiisna uusan iloobi doonin ii sheegay ku dhahay wiilka masaakiinka oo isku galaaska tiin si aad ula dhaqanta maanta cadaalad darro kula ahmiya intuu ku dhaho si kastaba ha ahaato midkaas mar walba aniga ka fiican oo meesha isaga tagaa isagoo xanaaqsan maalin kale ninkan oo ah tababare wuxuu tartan orod u diyaarinayay labada wiil oo iskuulka u tartami doono midkan sida caadadiisa ahayd wiilka masaakiinka wuxuu ku dhaha kaba ma soo gedi kartid miya xataa ku tartantid wuxuu ugu jawaabaa wixii aan lacag haysto dhan waxay ii goysay kabaha raqiiska isla markii hooyadiisa oo macalinka la joogta hadaladiisa maqlayso kadib wiilkeeda waxay ku dhehaysaa kabahaga intaa soo siibtid wiilkaas ku wareeji asiga kuwiisana adiga xiro xoogaa badan oo is adkeenaya laakiin ugu dambeyn wuu ogolaana inuu kabaha ku wareejiyo wiilka masaakiinka markii ay guriga tageen hooyadiis wuxuu ku dhaha waxaad ii sheegtaa mar walba sababta aad u difaacdid cunugaas sidoo kale ii sheeg sababta aniga wiilkaaga ah aad iiga soo horjeesato ma waxaa jira wax uu isagu sameeyo aniguna aan aqoon sida loo sameeyo intay gacanta ka qabatay waxay ku dheheen nakeen aniga indhahaaga kugu soo tusayo wax wiilkaas kaaga fiican yahay siday u soo wada meeshaan keeni waxa weydiinaa wixii aad i tusaysay aawa TV daawanayay meel fiican wax ii maraayeen iyaduna waatanaay waxay tusaysaa midka ay isku galaaska ahaayeen oo kaba caseenaayo waxayna ku dhahay adiga inta aad maalin walba TV daawanayso isagu wuxuu ka fikiraa wixii uu cuni lahaay wuxuu taagan yahay anigu ma fahmin sababta oo sidaas u sameeynaayo maxuu cunto u raadinaa waalidkiisa ma u joogaan oo wax walba ma siinayaan waxay bilaabayaan inay daba raacaan meeshii uu kabaha ku caseenayay markii uu ka tagay isagii sida uu soo socdo waxa uu iimaanaa hooyadiis oo xanuunsan oo sariir jiifto wuxuu ku dhahaa hadda waxaan soo shaqeeyay lacag ku filan oo lagu bixi karo daawooyinkaaga isla markaasna midii maamulaha ahayd iyo cunugeedii meeshaanay ka daawanayeen wiilkeeday waxay ku dhahay hooyadii wax walba sii lahayd wiilkaas ma ujeedido inay sariir saaran tahay waxaad ii sheegtaa marka wixii aad samee lahayd haddii aan anigu meeshan keligaa kaaga tago hadda waxaad ii sheegtaa marka wiilkaas iyo adiga yaa fiican mise adigu weli waxaad ku fikiraysaa inaad ka fiican tahay wiil hooyadiis caawinayo asagiina waa kanahay maamulihii wiilkeeda markuu arko wuxuu u malaynaa inay kabahoodii soo doonteen laakiin midkana intuu u yimaado wuxuu ka codsanaa wax walba ku sameeyey inuu iska cafiyo maalintaas kadib labadoodii way heshiiyeen waxayna noqdeen saaxiibo mar walbana midkii aan cuno soo qaadan wuxuu cunada la wadaagi jiray midka kale asbuuc kadib maclimadii waatana iyadoo wiilkeeda u sheegaysa sida uu ardada ula dhaqmay inay isagana ula dhaqmi doonaan wiilkana waxay u sheegayeen inay hooyadiis u diri doonto dhakhtarka magaalada ugu wanaagsan muuqaalkana intaasoo ku ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnoosa soo dhawaada ninkan qof dumar ah oo dhan lama tusi karo oo dagaal kala dhaxeeya maqan waxay ka sameeyeen dumarka kale ma ahan xitaa hooyadiis kama aysan badbaadin wuxuu ku dhaha adiga horteeda maxaa u taagan tahay oranjikada inta aad idiisoo kari cunto gaaja ihese xaaskiisana wuxuu ku dhaha adiga xitaa hooyada orod raac oo jikada ku caawi cunto kala kacsan isoo kariya boorsadana aad u jeedina culayskii ay ka badatay oo anigu ma qaadi kariyo ee orod adigu qaad hooyadiis waa tanaa iyadoo u soo karisay cunadii uu sheegay fadhigiisana uu keenay laakiin isaga markii cunada loo keenay ma ka helay wuxuu ku tilmaamay inay qashin tahay isaga oo hooyadiis u sheegay inay cuno fiican u soo karisaa meesha waxa soo gaaray isaga walaashiis markay aragto midkan sida hooyadeedu la dhaqmaayo waxay ku dhehaysaa adiga cuuriyaan miyaa tahay orod soo karso cuntada taqaanid asagana waa kana intuu soo istaago wuxuu ku dhaha shaqadaas hooyada iyo xaaskiiga iskale adigana haddii ay gaajo ku haysa halka xab hore waa u qaadan kartaa isaga iyo walaashiisa isdagaali rabaa xaaskiisa kasoo dhexgeliyay wax kale inagu mashquuline kadib markii uu meesha isaga tago midaan hooyadeed waxay u sheegay inay iyadu u yeelyeeshay inuu sidaa ula dhaqmo laakiin iyadoo hooyo waaye waxay dhehaysaa isaga wiilkayga waayo maxaa ku samay karaa anigu waa arkaa si xun inuu u dhaqmaayo laakiin waa iska sugaynaa inuu fiicnaada laga yaabaaye isla markiina meesha waxaa soo gaaraya midkan oo ah isaga walaalkiis midana waxay bilaabaysaa marka inay u sheegto sida uu walaalkiis u dhaqmay isagana waa kanaay wuxuu iska soo jaraa aabiisa la socodsiina arrinta laakiin hooyadiisa ka diidaysa inuu sidaas sameeyo labadoodana waxay ku dhehaysaa aniga hadeertaan ma fiicni ee midkaas jaanis kale ha la siiyo mar kale midkii waa kana isagoo xaaskiisa la socda hooyadiis ka daba imaanay waraaqadahan intii u dhiibtay waxay ku dhehaysaa miiska dushiisa uga soo tagtay anigana waxaa ku fikiray inay muhiim yihiin sidaas darteed waa ka daba keenay cuntadan intii u dhiibtay waxay ku dhehaysaa aniga kuu soo sameeyey qado waaye xafiiskaaga waa u qaadan kartaa laakiin midkan cunadii oo hooyadiis u soo sameeyso dhulka ku tuura wuxuuna u raacinaya inuusan
isagu ilmo ahayn aysan sidaas samayn mar kale sidii uu qaylinaya hal mar xaaskiisa wuxuu ku dhahaa hooyada hal xabo dharbaxsha ka kici xaaskiisu inay arintaas sameysay way ka cagajiiday laakiin ugu dambeyn iyadoo ku dhufarabta meesha waxa soo gaaray aabiis iyo walaalihiis isla maalintii xigta odagu midkan gurigiisa uu ka saaray wuuna uga digaa inuu dib ugu soo laabto waqti kadib isagoo xafiiska uu ka shaqeynaya jooga ayaa gabadhan u iimaanay waxay ku dhehaysaa booska shirkadan iska laha fariin igu soo ka dhiibay marka waa ku sheegahay dhageyso sidoo kale waxaan ku wadaa waraaqadii shaqada lagaaga buri lahaay waxaa lagugu eediyey lacagaha shirkadda inaad si qaldan u adeegsatay aana ku bixisa maalgashi aan faa'iido lahayn sidaas darteed kabaniga wuxuu khasaaray lacag aad u badan wuxuu ku dhahaa adiga wax yar si qof qaldan la hadlaysa aan u maleena anigu waxaan ahay qofka ugu fiican ee shirkaddan ka shaqeeyo laakiin iyadu waxay u sheegaysaa inay ka xun tahay oo aan arrintaas waxba ka qaban karin waraaqadii markii loo saxiixana waa tanaaye meeshii isaga tagay isaga oo xafiiska alaabtiisa ka urursanaya xaaskiisa u iimaanay faraantigii guurkooda intay soo bixisay ku wareejinaysaa inay furiin rabtana way la socodsiinay bilooyin kadib saaxiibkan waa kana kuwa wadooyinka ka tuugsada isku bedelay walaalihiisa intay wadada ku arkaan ay lacag fiican siinayaan laakiin isagu waa diidaa inuu qaato maalin kadib waa kana isagoo ordaya guriga dib ugu soo laabana hooyadiisa wuxuu ku dhahaa waa ogahay qalad waa galay laakiin qof kasta wuu qaldamaa iskii cafiya arrintaana mar kale dib uma dhacaysa fursad saddexaad isiiya hooyadiisa waxay ku dhehaysaa fursado badan waa ku siiya laakiin maxaa ku sameeyaa ma isbedelaysid mar kastana waxaan isdhahayaa hadda uu isbedelaa laakiin adigu maxaa sameysay mar kasta waxaa dib u bilaabaya inaad dumarka si xun ula dhaqantid xitaa hooyada kama reebaysid adigu waxaa tahay wiilkayga laakiin jacayl kasta xuduud uu leeyahay kadib xaaskiisa wuxuu ku dhahaa adiga hooyada ha ku dayana iskii cafi meeshan waa isaga tegaynaa dalxiisna waa u baxaynaa haddii aad rabtid laakiin intay hal xaboo dharbaxsha u gelisay waxay u sheegay haddii uu isbedela xitaa in xoogaa kadib dhaqamadiisa uu la soo bixi doono walaalkiisa intuu qabto guriga dibadda uga saara muuqaalkan intaasoo ku ekaay ee hadda halkaas soo gaarta leegnosa